Hapo ndio inabidi unaanza kuwa spiritual. Naambia toto, kazi ya Mungu hii. Kazi ya Mungu haitaki mchezo. Wacha Mungu afanye. Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada waraysi aan la yeelanayno Nasra Yuusuf Axmed oo ah gabar Soomaali comedian ama majaajilayste oo qayb ka ah showga ugu weyn ee qaraaxo ama shactire ee wadanka Kenya. Nasra kusoo dhawow inaad la hadasho Jubaland TV. waad mahadsantihiin Jubaland TV magacayga waa Nasra Yuusuf Axmed maxaan nahay gabadha horeyso majaajilayste comedian oo Kenya maxaan ku dhashay Nairobi laakiin maxaan ka soo jeedaa county Garissa maxaan school iyo wax walba maxaan ka dhigtay Nairobi. Sidaad ku bilowday hawshan majaajilada maxaa ku xiiso galiyay? markaan yaraa qof walba wuxuu dhahay Nasra waa fan ya tahay jaribay mesh Churchill show aad comedian noqo marka anigana weligii kama fikirnaa noqon rabo comedian weligii ma damcin inaan noqdo marka mar ma ka fikira xasde aan soo jaribay bal shaqo ma haye marka soo jaribay walisi maxalle dadka ka soo qosashay waan ka qosashay sidii markaan ku noqdo comedian marka mar baan isda anigana waan jeclaan lahaa sayidina aniga TV liga arko Churchill show marka Churchill si lagu galano way adag tahay marka show kale oo yaryaraan ka bilaabay mid comedian la dhaho and then Churchill maxaa isku baranay mar baa jirtay tartan oo comedy qofka oo shindeeyo maxaa la siinay 1 milyan iyo gaari la siinay marka anigana waan ku jiray tartankan ku jiray marka semi finals ka malena waa liga bixiyay dadka way calaacaleen oo firsanayeen iyo dadka dhan waxay dhahan gabadha soo celiya aad soo celinayeen filimka dambe ma firsanayno marka si ligu celiyeen ma jirin marka final la gaaray magtay Churchill telefoon uu soo diray galabtii wuxuu dhahay dadku way calaacaleen waa laga bixiyay filim tartanka waa laga bixiyay dadka aad ay calaacaleen marka waxaan rabaa inaan showgayga aadamato Churchill show marka sidii aan ku aaday Churchill marka aniga waxaan malena aniga waxaan ku jiraa dadka oo si fudud ku galeen showgaas. maxay yihiin caqabadaha kula soo gudboonaday inta aad hawshan ku jirtay? challenge aan helay markaan comedian aan noqday maxaa kamid ah dadka horta maxay leeyihiin gabadha tahay maxaa waxaan u sameynaysaa macallin jiray wiilasha waxa loogu talagalay way ku niyad jebinayaan qaar waxa ku dhahayaan profession kale rato macallin noqo waxaan wax kale noqo waxaan iska dhaaf maxaa jira hadana marka hore aabahay kama helin support-ka oo la sameeyay comedy marka annakaas uu igu cusla aabahay waxaan rabay inuu support garo uu ku farxo waxaan sameeyay hadana waxa jirta mid kale oo show lagu yeeraa laakiin dadku waxay rabaan lacag yar inay ku siiyaan adiga wiil hada isla tagtay wiilka lacag badan la siinaa lacag yar lagu siinaa marka maxaa waaye challenge waaye aabaha si uu qanacsan inuu ku taageero I think hooyadii la hadasho malena kasoo hooyadii way support garaysaa from day one way support garaynaysaa marka moogi marka hore uu nacbanaa muuna maqli karin laakiin of late maxaan arkata asaga ay dhahaa maan shidanaad iga qosashay meesha waxa sheegtay anaa ku qatar u ahaa marka next time saan dhahay asaga uu sheega bari waxaan dhahay marka uu ku faraxsay ma jirtaa sheeko aan maskaxdaada ka goyn oo ka soo martay hawshan? wuu jiraa sheeko aan iloweynin comedy-nimada intaan galay horta comedy markaan ku jirto dadka badan maxay qaataan 2 sano ama 3 sano oo kale si oo dadka dhan ay u bartaan dadka dhan ay shaqadaada ay ku jeclaadaan oo shaqeeyaan oo weyn lagu weero laakiin aniga hata sanad ma dhameeyna malena shaqadaraad waxa laga yeeray shaqo oraadiya laga yeeray Star FM waa waxaan lahaa 5 sano ka bacdi ku yeeri doonaan islaha laakiin hata sanad ma dhameeyna waa lagu yeeray hal jiray shaqo badan waa lagu yeeraa yani waxaan ku hata BBC daraadeen lagu warsanay BBC Africa BBC Swahili BBC English kulli BBC Somali marka waa waxaan filaynin way oo dhacay yaa ku ah tusaale aad ku dayato comedy-nimada la dhaho qofkan ku daydo dhanka Kenyaanta maxaa jira Churchill laftirkiisa aan ku dayda laakiin inta markaan yaraan zaid maxaa u jeclaanaa fiirsado riwaayadaha Soomaaliyeed si loo dhigayo aad baan u jeclaa qabiyo 1 iyo qabiyo 2 iyo hablayn goorma gursan doontiin iyo aad baan u jeclaa filmadkana fiirsado marka maxaan ka heli jiray sangub sida uu wax u dhigay iyo maxaa la jiray iyo Nkrumah iyo kulli maxaa magacooda waa ilaa hadda laakiin iyo ajkiis awatu kutuba iyo waxa dhan ka heli jiray aad baan u heli jiray
marka waxaan dhahaa sangubna marma qaar waxaa umaleeya waxyaalaha qaar uu sheega uma sheega aniga aftarkii makaan yara aniga walaashay jirtaa Fawziya la dhawaas la dhigi jirnay filmaha makaan fiirsano aniga Soomaaliland haddana kuwan bilaabeen waan dhigana mid waxaa jira horta xasuusto waxaa jiniga wabiga baldi makasay wuxuu ahaa laakiin halaasaan ka xasuustaa marka filmku hataa ma xasuusta iyo ajikis mid la dhahan waa jira kulli waan ku haystaa maxaa iska bedelay hab fikirkaagi inta aad majaajileysta noqonin iyo hadda fikirkayga u bedelmay sa comedian u noqday kasoo marka hore aan waxa ahaa qof oo aan kaliya isu taagan aan waxaan sameeyay aan makosadan sameeyay aan makoso waxa xunadan sameeyay kaliya way laakiin hadda gabdha Soomaaliyeed ay fiirsanaya jiraan dad oo aan inay igu daydaan rawaana jiraan marka sida uu hadlayo waa si oo fiican oo hadlo iyo sida uu labisana iyo yani tusaale fiican dadku noqdo way kasoo dad bay fiirsanaya marka qaarata Instagram ka ku jiro maxaa laga yaabaa sawir inaan dhigo anoo si fiican u labisan Soomaalida waxaan dhihi jiray sawirkaas tirtira lidhaa waan tirtira soo marka hore zamaani caadi wiha waxaan sameynaa ana yani it was just all about me the first time hadda kale waxa aan sameyn jiray oo kale ma sameyn kari qasab waa inaan tusaale fiican u noqdo gabdhaha Soomaaliyeed waa sida dhaqan ahaan reerkiin أنا كم حنلو كوري دقن سومالية أنا كوري ما دام أن كينيا كودش أن نيروبي لو كوري إنت أساسنا أكيد دقن سومالية لو كوري مركا سيدا سومالية كلا قبلها سومالية كلا قرية لوها أنا كان قرية لوها نجري نيروبي حملنا تاون كنيروبي محن برتة 2017 كان برتة ما كانش الآن يعني كومين كان بلا وراجع تاون كبرتة قصاب وأنا لو دي جري بنان كنا وبحنا إيميل لأنه أبهي ونوات كاي هو يدي كلي marka hadda badana shoogan sameynaa haweenkii way and abahay marka qaar tashwiisha galayaan wuxuu dhahay gabadha maxay haweenkii baxda mar walba maxay guriga joogeen marka waa inaan aan naftirkii aan qanciyaan dhaha shaqo u socda lacagta helan waa waxa inaan siyaasada marka ku qanca u maleynaa waxaan sameynaa u maleynaa marka qaar telefoon uu soo diray wuxuu dhahay meesha joogto muslimiin miya mise gaalo bas way dad la aaminay miya mise waa dad xun way marka walbahaarkaas uu jira qasababu sida loo kusoo waa sida muslimnimo iyo Soomaalinimo aabe wax ma ka weydiiyaa dadka aad la shaqeyso iyo labiskaaga aabe wax walba controla waxa la waxaan sameeyo controla ilaa waxa lagu maadaa Instagram kuma jiro kaasum buu controleen laakiin waxaan kale salaadi meeqa saaca baxday habeenkii meeqa saaca soo noqotay maanta maxaad gashatay yani wax walba uu wareystaa kasoo muxuu asaga ilaa hortiis ku istaagata uu dhahayo maxaa la jiray loo qabsanin gabdhahaada dhumisay xasuuso kale uu controla bay mustaqbalka hadii aad reer yeelato oo hooyo noqoto sidaad isku wadaysaa hawshan iyo tan guriga waligay kama fikirin taas inaan isku wada doonin kalena ma ogi horta bal aan sugo marka leegosada ama aan fiirina markaas aan sheegi doono laakiin hadda waxaan malayn isku wada karaa malayn kasoo hadda digital world ku jirna wax walba lacag waay maadaama lacagahan haysto caruurta ilmahan ku dhaaf maxaan ku dhaafaa shaqaalaan ku dhaafaa ninkan asaga in la ilaaliyo ma aha waqti uu iska soo wareega shaqada wada marka I think waa isku wada hadana comedy waxa waaye waxa sameeyay like 30 minutes stage ku jirta ka taagan tahay dadka qosashada xaafada aadi waxaan office ku jira maaha loo saaciyo ilaa iyo 10 saac maxaan la galabna waxaan office ku jira maaha so maxaa easy money way comedy is just easy money ma jirtaa cid aad garab ka hesho marka aad niyad jabto محمد شخصي محل جري ما كان يجبسني على هذا وحاول تشاتل وحاول إنك أو إسكاله شغل تشاتل شو لده محاول إن أو كيني عاد بالوجع عليها يدك عاد بوحش مين يا ما كان يبغى أسوق بالهلا وحاول بكشك سننا نيدو يدسا وحودها yeah the future is bright just keep on going yeah ugu dambeyntii ma jirtaa fariin aad u reebayso ummadda Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed waxaan leeyahay qofka shaqada sameeyo niyadda u dhisaa niyad jabina shaqadan sameeynaa shaqo xun maahan in ay taageertiin oo aad baan u jeclaan lahaa waana ku mahadsanyahay kuwa ay taageeraan waxaan arkay dad baa jira oo message soo qorayaan Muqdisho ka firsanayna Kismaayo ka firsanayna oo ay dhahayn maadaama taaf Soomaali ay fahmeen Soomaali wax walba shoogay wax walba af Soomaali af Ingiriis leeyahay يا مرة حاجة علىنا هنا ما ذو مقدسة كسمة جبل الملبو أف سومالي لان كهلو
laakiin af Soomaaliya soo barto horta hadda waan jajabinahay arkaysa aad baad u mahadsantahay Nasra guul waa ku rajeynaa waan mahadsantahay